shan qof oo afar ka mid ah ay ajaanib yihiin ayaa Puntland ku karantiishay xarun ku taala duleedka bari ee Garowe halkaas oo lagu talagalay in lagu karantiilo dadka xanuunka laga helay ama kuwa looga shakiyo wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdinaasir Yuusuf Xaaji oo la hadlay warbaahin ayaana xaqiijiyay shanta qof ee la karantiilay arintaas horta ma jirto cid la xaqiijiyay oo coronavirus ama viruskaas laga helay ولا هذا الحقيقي وبنتلان لقى حقيقي ما شرته ومضوا وحويان واجران ورا الأسر الحمريين وعليهن ضد باقروا لقى هلاي كورونا فيروس قبا وحاس عنو شيء إن ضد كيجا إني سنشرين عيد كورونا فيروس لقى هلاي أو إلى هذا وزارة عافماتكو أي كونفيرم جريسو أي هيسو لكن واحد شرا ضد لوجا شكسين هاي أما علامة دي عذر كغيبة كمدة لوجو أركي ضد كاسي وشنقف أفرقف أجنبية iyo hal qof oo Soomaali ah xaaladooda waa fiican tahay waxaan u geynay xarunta karantiilka ee Garowe laga sameeyay wixii intii loo ogolaaday daawo ahayd oo qanajimintii iyo oxygentii iyo waxyaabaha qaarkood u baahnaa waa siinay waxaan ka qaadnay dheecaankii ama sambalkii lagu ogaan lahaa oo lagu xaqiijin lahaa dadkan inay cudurka qabaan iyo inaysan qabin baaritaankaasna wuxuu soo baxayaa maalmaha soo socda hadii alla idmo laba bari ka ciisho meelahaas buu qaadanayaa dambe ama saddex ugu badnaan waxa weeye markaas la oran karaa dadkaas waxaas way qabaan ama ma qabaanin xaaladooda hadda waa degan tahay waxaana ognahay cudurro badan oo cudurkan ay isku calaamada yihiin oo inay jiraan sida qandhada qufaca neefta qofka qabanaysa waxyaabahaas oo dhan marka qofkii qufaca ama qandhaysan ama neeftu qabataba dee laba oran karo coronavirus buu qabaa marka sidaa darteed ma jiro case la xaqiijiyay oo Puntland laga xaqiijiyay cudurkaasa dadkaasna waa cudurkaas looga shakiyay wasaaradda caafimaadka gacanta ku haysa baaritaankiina waa laga qaaday ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kana baryaynaa in uusan noqon mataqaanaa positive xaaladoodana saas loola tacaalaya waana diganta xaaladoodu Cabdinaasir oo hadalkiisa sii wata ayaa digniin xoogan u diray dadka iyagoo aan waxba hubsan baraha bulshada ku qoraya qoraal aysan haysan cadeyntooda waxaana dadka ugu baaqaya qoliyaha saxaafadda uga digaynaa dadka wax qorqoro uga digaynaa kuna taleena in aan war aan xaqiiqo ahayn aan la faafin waxyaabaha caafimaadka dawlad wasaaradda oo qaabilsan dawladda wixii si rasmi uga soo baxa oo la sheego baa war rasmi ah laakiin dadkii inay iska xukuntaan oo dhahan coronavirus baa wadankii laga helay iyo xagga iyo war aan jirin la boonbooniyo warkaas waa wana saaxaynana ummadda yaan khalkhal la gelin waxa weeye dhibaato ma jiraanin dadkaasna waxa weeye shakigaas yar baa ka jira ayadana waa la xaqiijin doonaa aad baa umaasan Puntland waxaa shalay soo gaaray agabkii lagu xiranayay wajiga ee maskaraatigu ka mid ahaa iyo kii dharka qafilnaa oo laga keenay wadanka Shiinaha dawladda Soomaaliya oo ugu deeqay maalqabeenka Shiinayska ah ee Jack Ma kaasoo Afrika oo dhan ugu deeqay qalab tiro badan oo noocan ah fadlan daawade waxaan ka codsanayaa inaad page-kan saadho subscribe gambalelkan aad rukumato lana socoto wararka aan soo gelin halkan mahadsanid